haddii aad u kala fadhidaan ma laba kooxood iminkaad nooga fadhidaan hadalkiina aan ka arkayno mucaarib xaafid oo dana gaar aad matalaysaan saddex xildhibaan ay yihiin dana gaara saddex xildhibaan ay dowlad difaaciyeen maxaad nala hor timaadeen oo ka midaysantihiin ma haysaan xal aan tiro ahayn oo golahan saameyn aad ku yeelan kartaan oo waxna diidi kartaan waxna aad ogolaan kartaan maadaama baarlamaanku si guud u sharciga iyo xeerarka ku ilaaliya xukuumadda xilligaa jirta idinkuna aad tihiin matalayaashii gobolka awdal arrintaasi oo aynu ognahay dhaqaale burburka ay degmadan iyo gobolkan u geysatay maxaa xukuumadda wax uga qaban weydeen maxaa ula hadli weydeen maxaa idinka qorshaysan mase ka wada hadasheen mase ma xasuusan tihiin lixdii goobood ee doorasho ee naga xubnaa maxaa idinka qorshaysan dalku bariya galbeed buu leeyahay qofka galbeed ka soo galaya waa ay lacag $30 oo madax furasho oo xaaraan oo xirjiday looga qaadaa waxaa habeennimadii xalay gudaha magaalada Boorama lagu qabtay kulan ballaaran oo la iskaga horkeenay dadweynaha magaalada Boorama iyo xildhibaanadii ay doorteen golaha wakiilada Somaliland bandhigani oo soo qaban qaabiyay maxadka daraasaadka ee Macdugsiyo oo xafiisyo kala duwan ku leh gobolada kala duwan ee dalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida waxaana bandhigani loo magac bixiyay habeenka dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka Awdal kulankani oo ujeedadiisu daaranayd isla xisaabtan iyo isxog waraysi u dhaxeeya xildhibaanada iyo dadweynaha reer Awdal waxaana ugu horeyntii bandhigani ka hadlay gudoomiyaha maxadka Macdugsiye Khadra Umar Samriye mar labaad waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada lixda xildhibaan ee soo ajiibay baaqi dadweynaha waxayna muujiyeen bay cadeeyeen cadceedii iyo bacadkii loo taagnaa maalintii doorashada inuuna ku dhicin meel qaldan waan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka xumahay xildhibaanada halkan ka maqan ee bulshadii soo dooratay ay caawa halkan fadhido ee minidkii ugu dambeeyay ka cudur daartay maxadka daraasaadka ee Macdugsiye waxa la aasaasay 23 Juun 2022 sababihii loo aasaasay waxa kamid ahaa in wacyiga ummadda kor loo qaado in fahamka siyaasadda ee bulshada la soo dhaweeyo in la helo madalo sidan oo kala ah oo ay ku wada hadlaan mudanayaasha la doortay golaha baarlamaanka oo kaliya maaha haddii deegaanka tahay qof kasta bulshadu soo doorato iyo shacabka soo doortay madala ay ku wada hadli karaan Macdugsiye wuxuu laama ku yeeshay dhammaan gobolada Somaliland oo dhan uma shaqeynayo gobolka Awdal oo kaliya Macdugsiye wuxuu shaqeyn doonaa dhammaan gobolada Somaliland oo dhan iyo dowlad deegaanka intaaba xubnayo ku yeeshay أنا هذا الكثير بدني وجدت برنامج كان عن اسبوعين من عاوة وحويان إن هرجليو إسل حسابها يسحب ورئيسي مضيناياش يبشري صوتارتي sidoo kalena qaar ka mid ah xildhibaanadii lagu soo casuumay kulankani oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay sheegeen awdal halkay wax kaga maqan awdal ahaan baan inaynu kulmaynaayo intii bariga dhaweyd ma soo dawlistay kuma kulmaynee awdal halkay wax kaga maqan awdal waxay wax kaga maqan waa dastuurka sanadka aan idinka maqnaa nuxurka ugu weyn anaga soo kordhorto waa inta laba waxa kale wax kaga maqan yihiin oo dastuurka iyadna ka soo sokaysa awdal wali ma garanaysa siyaasigeeda aragtideedu waa taa siyaasiga awdal waa ninka ay dooratay ma aha ninka madaxweyne magacaabo ma taanad noo diratay waxaan soo ogaanay 500 milyan weeyaan miisaaniyadda qaranka ee 500 milyan laba sanaanu joognaayo oo ansixnay lacagaha horumarka ee mashaariicda ee wadanka loo qaybinayo inay 200 milyan yihiin baa laga yaabaa wax la inoo garta mooyaane miisaaniyaddu waxay ku qaybsan tahay xeer waxay ku qaybsan tahay xeegaan waxa lagu qaybsadaa xeelad waxa lagu qaybsadaa farsamooyin fara badan علمي كما دسنا عقلنا كما دسنا gobolada awdal xeerna waxba kuma helaan xeelad waxba kuma helaan xoogna waxba kuma helaan waxa weeyaan waan yaabanahayba cidaan waxba xeer ku helin waxa weeyaan burco iyo gobolka awdal baabuur iyo burcaan xeer ku helin caaw codsigeen ha noqdo qodobka koowaad ee dirayna mudana madaxweyne
xeer u samee Burco iyo Boorama hay dhaqaale ku heleen run ahaantii arrintani waa mid loo baahnaa dadaal sameeyra anu markaan aniga ay raahdo kale ninkii maxaad noo haysaan xisbiga kulmiye ku yiri baan ahaa ee waxba ma filayni inna ma ayna leeyina ka dhaqaaqay sidii baan kaga maqana sidii markii cadkii gobolka awdal ku lahaa aan ka waayay sidii baan kaga maqana mar labaad dhacdooyinka intaan golaha joognayna soo maray waxa kamid ah iska daa shaqaale iyo waxaad ka sugtaane iyada oo xadka boolna soo dhigo stick sigaari hoos u dhaafi waay arrintaas sanad taagan ayaan anagu meesha nimidnay dadweynaha iyagiyo cabanayaan noo yimiday arrintii baan falanqaynay waxay noo warrameen ilaa madaxweyne ku xigeen ilaa wasiiro meel walba inuu gujiyeen cid u baxda weyd intaanu yeedhnay oon golaha horgeynay oo fasax galay baan dabadeetana gudidii dhaqaalaha intaan soo afgaran weynay shantii xubnood iyo aniga iyo maxamed habiibi mukhtaar shir jaraa'id halkay ku wada qabanay arrintaasi guul bay keento cunaqabatayntii dadkaa saarnaa waa laga qaaday sidii bayna imika u shaqaystaan inta shaqadu deewa wax guud oo wadanka oo dhan Soomaaliland lagu mato tanoo soo raacday waxa weeye constituency-ga inaan maxaan ku dhahdaa amba ha gobolaysnaado amba ha degmeysnaado maadaama anagu aan xildhibaano heer qaran nahay marka waa gobol inta badan maxaan ku dhahdaa miqyaaska iyagu marka constituency-gana laba arrimood unba muhiim inaan maxaan ku dhahdaa ka qabo xuquuq ka maqan ama dib dadka constituency-ga ku socoto inaan maxaan ku dhahdaa kala galgalano intii taaqeega ku laba manfac maxaan ku dhahdaa ay lahaayeen oo meesha kaga maqan inaan u doono marka haddii aan xeerasha sameeyno oo xeerasha wadanku baad qabanaysan awdal waxba idmeen qaban ma jirto tii awdalna way ku jirtaa waxa weeyaan waxyaabaha wada qabanay waxa kamid ah aan leenahay wada qabatay sanadkii hore oo kale Axmed Yaasiin waa lagu jiray ragayagii miisaaniyada ka hawlgalay muxuu ahaa gudiga maaliyadda waxa lagu jiray walaalkeen Abubakar oo isbedoor fiican ka qaatay markaan xogtii iyo sidii wax loo kala qaybsadana ogaanay waxyaabo badan baan gobolka u soo kordhinay oo soo qaadnay waxa kamid ah arrintaas jidkan maanta shalay aan dhagax dhignay u baxa degmada Baki ilaa ruqi gaari doono insha Allah oo aan shalay bilownay ayaa kamid ahaa waxa kamid ahaa dhakhtarka TB-da oo isaguna insha Allah in la sugaya oo sanadka la aasaasi doono waxa weeye miisaaniyadda markaan ka sheekeynayno waxay ku bees garaysan tahay wasaarad ay ku bees garaysan tahay way wasaaradaysan tahay laakiin ma goboleysna sidaa darteed ma oran karno gobolka hebel ama gobol heblaayo ayaa naga burbadsaday insha Allah ta'ala waxa weeye su'aashaasi way taalaa oo anagu laftarkaygu wasaaradda horumarinta maaliyadda waan weydiinay su'aashan waana halka loo socdo in loo soo dhaadhiciyo miisaaniyadda in la goboleeyo insha Allah ta'ala wixii intaasi ka dambeeyay qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama ayaa halkaasi su'aalo kala duwan ku weydiiyay xildhibaanada iyagoona mid uga jawaabay haddii aad u kala fadhidaan ma laba kooxood iminka noo fadhidaan hadalkiina aan ka arkayno mucaarid xaafid oo dana gaar ah matalaysaan saddex xildhibaan ay yihiin dana gaar ah saddex xildhibaan ay difaaciyaan maxaad nala hor timaadeen oo ka midaysantiin oo kow وارون عبد القادر الكوكا اللي توانو خلنا وارون وانا طبيعتها ان هدي الله يلا قولها إن أنو حد يجير وح والبكم إذا إثنانا دنتينو كم جرتو دنتينو كم جرتو كلا دونا شهاد حدودا دن باكو جرتا لكن إن وح والبكو كلا تجنانو يدنا دني كم جرتو وأنا مركا قضوا هذا ورقة هراء كريري ولي مر حتى إذا نعرق
annagoo 13 gobolka awdal ah oo halkaa idin soo wada hor fadhina oo qodob idin kala hadlayna dee anigu waxay la tahay wax looga galgashaa halkaas ma jirto way nagu foortaa xabadaas qodobka halkaasaan iska dhigaya dadka halkaas soo fadhiisanaya filashay qabeen xildhibaan filashaday qabeen iyo waxa hadda inaga muuqdaana dadkan marka hore way iska niyad jabsanaayeen caawan waxaad ugu darteen tii ka daran maxaa waxaad noo sheegtaan dadkan waxay nagu tuhmayeen inaad aqoon-yahan dhalinyar iyo dad waaqica la socda aad tihiin midii filashadeedii maanta inagama hayaan caawa waxaad noo sheegtaan hal ama laba erey dadka rajadooda aad ku soo celinaysaan waa maasanta rajada ugu weyn waxa weeye inuu ilaahay iskeen waafajiyo amba aragtiyaheena mideeyo annagu waxaanu ka nimid bulshada haddaanu qaybsannahay waa sidaa tiin haddaad inagu noo maxaan ku dhahday midowdaan annaguna midoobana Soomaaliland dimuqraadiyad bay qaadatay xisbiyay maxaan ku dhahdaa ku qaadatay xisbiyadaasi dariiqda yaa lagu gaarayaa baa leeyahay maxaan ku dhahdaa madaxtinimo nin walba wax soo kordhiyo madaxtinimo gaar busle anagu ma rajadayna waxa weey waxaan isku daynaa inaan ka midowno danaha guud ee gobolka waxayga xildhibaanada inta ay hor fadhida iyo inta naga maqan hadaan nahay arrimaha gobolka ee masiiriga waanu ka midoobana waxa weey warajada aan maxaan ku dhahday su'aasha koowaad waxay noqonaysaa ma haysaan xal aan tira ahayn oo golahan saameyn aad ku yeelan kartaan oo waxna diidi kartaan waxna aad ogolaan kartaan waxa weeyaan halka waan haynaa halku waxa weeyi xildhibaanka 13 waan tira yarna laakiin dadku waa block gobol reer weeyaan inaanu shirgidoonka xubin ku yeelano waxaanu la heshiinay blockyo kale hal waan haynaa waxay naga maqan halkeega waan helaynaa waa taameeydhan ku keenay ururkii laacinu urur soo baxo maaragtay hilaacinu urur noqdo waa taa ku keenay saaxiib uu leeyahay saaxiibaanu leenahay annagoo isku duuban dantana haddaanu ka midowno waxbaan idin qaban karaynaayo ujeedadu waxa weeyaan inay gobolku horumaro inay Soomaaliland horumarto oo nabad helo sanadkii ugu dambeeyay magaalada Boorama guud ahaan gobolka Awdal waxa ka jiray oo laga fuliyay hawl leedaho master plan su'aasha markaan weydiinay waxa weey xildhibaanadayda inta xagga joogta iyo inta maqanba maadaama baarlamaanku si guud u sharciga iyo xeerarka ku ilaaliya xukuumadda xilliga jirta idinkuna aad tihiin matalayaashii gobolka Awdal arintaasi oo ay ognahay dhaqaale burburka ay degmadan iyo gobolkan u geysatay maxaa xukuumadda wax uga qaban weydeen maxaa ulaahay weydeen maxaa arintaas xeerka ugu ilaalin weydeen waayo arintan arin degman baahay waa arin ay wasaaradda hawlaha guud mas'uuliyadda aad u leeyahay salaamu calaykum master balaanka magaalada Boorama hawl badan baa laga qabtay anigu waxaan aaminsanahay inkastoo hal araada ku dhufanayo anagu haddaan xildhibaanada nahay horta arinta kulanka maanu yeelan iskamaanu arag iskamaanu xog wareysan anu waxaan rumaysanahay master balaanka Boorama inuu yahay master balaan fiican oo magaalada mustaqbalka ay u aayi doonto haddii qof uu ka fikiro in hal jago oo ay ka martay waan ka xunahay runtii dad dhibaato ka soo gaadhay way jiraan laakiin waxa ka weyn qofka shakhsiga mustaqbalka iyo bulshada ka weyn waxaan aaminsanahay in master balaanku uu yahay shaqo loo baahnaa magaaladan ay u baahnayd su'aasha labaad aan raacsanayo waxay tahay waa xuquuqda ay leeyihiin dhalinyarta daba taagan golaha wakiilada isku shaandhayn lagu sameeyay gudoomiyaha Cabdi Khaliif waa garabka mucaaradka taageersan ee fadhiya meesha Cabdi Khaliif wuxuu sameeyay isku shaandhayn gudahoosaadkii 13 xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka labada golaha wakiilada oo meedhay kulmiyeen uga baxay ma waxaad gooyinka noo soo gooyseen xogeeye ku-xigeen gudahoosaad arinta ka dhacday golaha inta aan fasaxa ku jirnay la isku shaandheeyay gudoomiyaha golaha wakiilada horta waa mas'uulkii golaha isaga ayaa xaq u leh inuu isku shaandheeyo laakiin waxa jirta la xisaabtan baa jira aanu dib u eegi doono sida uu shaqaalaha golaha uu isku shaandheeyay ma cadaalad maaha anaga dib ugu noqon doona
arrintaasina waxay noqon doontaa arrin aan guddoomiyaha kala xisaabtanno haddii la yidhaahdo ma aan noqonayso mid aan ku dayno haddii la yidhaahdo xildhibaanada 13 ku maqan iyo ku jooga waxaan weydiinayaa shaqaalaha dawladda gobolka awdal tira ahaan waxay ka yihiin 2,750 waa 25,000 ee ay shaqaalaha dawladdu yihiin 2,750 markay ka yihiin waa 8% shaqaalaha dawladda marka madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa waashmaanka la gaarsiiyo mar hadaad la xisaabtamaysaan hay'adaha dawladda ma ogtihiin xogtaasi inay tahay 2,750 qof oo gobolka awdal ka tirsan 8% ay tahay haddii gobolada Soomaaliland calaa gobol loogu qaybiyo xaq gobolku wuxuu helayaa 16% iyo badh buu helayaa inta inaga maqan xagee loo doonayaa maadaama dawladda la xisaabtamaysaan iyo hay'adaheegii waxa kamid ah 2,750 ka wasaarado aan 9 sanadood iyo 8 sanadood wax shaqaalaha gobolka loo qaadan shaqadaad noo haysaan maxay tahay markaa horta xildhibaanadu shaqaale ma qoraan inay ku hadlaan wixii kugu jaban markaad xogtaada keento iyaga xaq loogu leeyahay oo sidee ku dhacday ay yiraahdeen waxaasoo dhanna markay taladaadu midaysan tahay ee codka aad bixiso ciddii waddankani dastuur baa loo samaystay dastuurku markaan ku wada hadlayno waa 3 waaxood buu sida hadalku yaalo la yiraahdaa waa fulin garsoor iyo sharci dejin sharci dejinta dastuurka wixii saarneed ee sameeynaysa waxay 97% awoodda ku ururisay waa fulinta haddii 12 keegis xildhibaan aan maanta mas'uul cadaalad darro sameeyay soo eedayno nalaado de go'aan ad ku eridin dastuurku deena siina madaxweynaha waraaq u qorno mooyaan halkay wax ka qorunsan yihiin ee dastuurkiina cid ay ka dhigmatay in geelismadoodu ku taalo ee illa taataabto marka dastuurka la soo qaado waa in la taataabto dad baa ilaashanayo waxay xidheen bay ogyihiin marka inuu run ku wada hadlayno in xaqiiqo dhaaracayno wali ma fahamteen codeer baan idinku sheegayaa wali ma fahamteen miisaaniyadda duuduubka lagu xansixiyo macnaheeda wali ma fahamteen miisaaniyadaasi waxay eeg in yaro hintii aan idin siinayaa war miisaaniyadaasi waxay ka dhaxaysaa in yaro la yaqaano oo gebile iyo berbere dhexdeeda burcayn yar talowdaa marmarka qaarkood war miisaaniyadda halkaa gasha sababta duuduubka loogu ansixiyo horta ma taqaanaa waa qodob duuduubka miisaaniyadda anu horta wali hal miisaaniyad oo gacad u taagan labada gool midna ma jirto midna ilaahay baan qadarinoo arrin caafimaad baa iga soo dhex gashay tan dambana anigu qolyihii diiday baan dee ka mid ahaa deegaankan ay dhaqaaluhu ku batay maaha mushkiladda dhabta ah xukuumadda joogtaana raali kama noqoto in la faqfaqo oo laga doodo oo waxa laga hadlayo halkaa la soo dhigo tani dooni mayno in cid gaar ah lagu ceebeeyo oo xaaraan quutayaa laga dhigo dooni mayno Soomaaliland qurxinteeda waxa ka mid ah hagaajinta waxa ka qaloocan miisaaniyadda sanad walba waa la kordhiyaa sanad walba marka la kordhiyo 2% xataa askartu kama helaan mana aha taasi sidee bay sax ku noqonaysaa inay khalad ay u muuqataa laakiin miisaaniyadda aad kordhinaysaan mar walba mushaaraad iyo hawl socodsiin aad u kordhinaysaan sidee bay sax ku noqonaysaa waxa jirta sidoo kale meelaha aad ka soo googoyseen lacagtaasi waxa kamid ah 10 bilyan oo ka soo gooyseen kaydka qaranka abaaraha sidoo kale 2 bilyan waxa aad ka soo goyseen sanduuqa horumarinta dhalinyarada iyadoo loo baahnaa sanduuqa horumarinta dhalinyarada in wax lagu gooyo ma in wax lagu biiriyo si ay dhalinyaradu shaqo abuur u helaan waxaad ku darteen 13 milyan iyo isla wakiilada 850 ayaad kororsateen mushaar ahaan
sidoo kale waxaad $1,000 ku kordhiseen hawlihiin aad tidhaahdeen hawl socodsiin mashaariica kuma jiraan sida waxbarashada caafimaadka kuma jiraan waxaan ahayn mashruuc loo gooyay saylac maxaad ugu dari weydeen mashaariicaha arrimaha bulshada walaashana weydiisana waxay ahayd lacagtan la kordhiyay anigoo arrintaasi yar doonayana yar faahfaahiyo waxaa ogtihiin golaha wakiiladu sidii walaalkeen cabdinaasir uu ka sheekeeyey wuxuu qabtaa shaqooyinkaasi oo ay ka mid yihiin matalaadda dadka iyo sidii uu soo sheegay in golahu uu leeyahay kalfadhiyo iyo kalfadhiyadaasi inta ka maqan in markaa golahu oo maxay ahaydee aan ku noqdo deegaanadii haddii aad u kala fadhidaan ma laba kooxood iminkaad noogu fadhidaan hadalkiina aan ka arkayno mucaarad maxaafir oo dana gaar aad matalaysaan 3 xildhibaan ay yihiin dana gaara 3 xildhibaan ay dowlad difaaciyaan maxaad nala hor timaadeen oo ka midaysantiin oo kow su-aasha labaad aan raacsanayo waxay tahay waa xuquuqda ay leeyihiin dhalinyarta idaba taagan golaha wakiilada isku shaandhayn lagu sameeyey guddoomiyaha cabdisaaq khaliif waa garabka mucaaradka taageersan ee fadhiya meesha cabdisaaq khaliif wuxuu sameeyey isku shaandhayn guddahoosaadkii 13 xildhibaan guddoomiye ku-xigeenka labada golaha wakiilada oo maydhaynay kulmiya uga baxay ma waxaad goynka noo soo goyseen xogay ku-xigeen guddahoosaad waxay ka soo kala baxeen xisbiyo kala duwan mucaarad iyo muxaafad leh laakiin waxay ka wada yimaadeen hal meel oo duruufteedii iyo beelahdeedu keliya jawaabteedu noqon lahayd waxqabad 1 milyan 100 milyan lacag ah ayaa sanadii hore qasnada dowladda ku soo dhacday dalkana soo galay 1 milyan baa xukuumaddu inoogu dartay qorshaha 1 milyan oo kalena madaxweynaha yidhi ree awdalana u gortay 98 milyuun kale maluuqada shukaaminta wasiirada maad garan weydeen xageed geysan baash arinta labaad waxay tahay raacsanayaay dhammaan waxa jira guddi hoosaadada ku xigeenaad ka wada tihiin waa maxay sirta inoo gashay ku xigeenku waan ka baxaya ma haysaan xal aan tira ahayn oo golahan saameyn aad ku yeelan kartaan oo waxna diidi kartaan waxna aad ogolaan kartaan waynu ognahay goruhu wuxuu ku furmaa koorankiisu 42 waxaana wax lagu ansixiyo waa dheeri weeyaan taad jawaab hadaad u heshaan mushaakilaadka kale ee jirana waad xalin karaysaan su'aasha labaad raacsanaya waxa weeye wali ma fahamteen codeer baan idinku sheegayaa wali ma fahamteen miisaaniyadda duuduubka lagu ansixiyo macnaheeda wali ma fahamteen miisaaniyadaasi waxay eeg in yaro hintiyaan idin siinayaa war miisaaniyadaasi waxay ka dhaxaysaa in yaro la yaqaano oo gebile iyo berbere dhexdeeda burcay yar talowdaa marmarka qaarkood war miisaaniyadda halkaa gasha sababta duuduubka loogu ansixiyo horta ma taqaanaa waa qodob waxa markaa meesha imanaya waxa imika jira miisaaniyaddu waa run qaybna waa howlsocodsiin qaybna waa mishaar waxaase jira 10% wax ah oo mashaariicda waxaan ku qiyaasay 500 milyan 10% marka la yiraahdo waa konton waxa weeyaan konton milyan weeyaan kontonka milyan xataa 6 gobol hadaad ku qaybiso gobolka awal 8 milyan buu helayaa 8 milyan maxay ka tahay 400,000 yaa sheegteen maxay ka noqonaysaa 8 milyan maasantii inkastoo la soo rifrifay waxa ay 3 bilyan oo Soomaaliland shilina waxay noqonaysaa $2 milyan oo dollar 1 milyan iyo badh oo u dhiganta 40% miisaaniyadii golaha wakiilada waxa laga dhigay 40% ka waxa laga dhigay mushaaraad iyo hawl socodsiin ay golaha wakiiladu ay leeyihiin golaha wakiiladu oo maaha baarlamaanka miisaaniyadda sanad walba waa la kordhiyaa sanad walba marka la kordhiyo 2% xataa askartu kama helaan mana aha taasi sideebay sax ku noqonaysaa inay khalad tahay muuqata laakiin miisaaniyadda aad kordhinaysaan mar walba mushaaraad iyo hawl socodsiin aad u kordhinaysaan sideebay sax ku noqonaysaa waxa jirta sidoo kale meelaha aad ka soo googoyseen lacagtaasi waxa kamid ah 10 bilyan oo ka soo gooyseen kaydka qaranka abaaraha sidoo kale 2 bilyan waxa aad ka soo goyseen sanduuqa horumarinta dhalinyarada iyadoo loo baahnaa sanduuqa horumarinta dhalinyarada wax lagu gooyo ma wax lagu biiriyo si ay dhalinyaradu shaqo abuur u helaan
waxaad ku darteen 13 milyan iyadna isla wakiilada 850 ayaad kororsateen mushaar ahaan sidoo kale waxaad $1 ku kordhiseen hawlihiin aad tiraadeen hoy socodsiin mashaariica kuma jiraan sida waxbarashada caafimaadka kuma jiraan waxaan ahay mashruuc loo gooyay saylac maxaad ugu dari weydeen mashaariicaha arrimaha bulshada sida halkan ugu hadalbatiin horta golweynaha ugu hadalbata taasi waa igayta sanadkii ugu dambeeyay magaalada Boorama ama guud ahaan gobolka Awdal waxa ka jiray oo laga fuliyay hawl leedahay master plan kaasi waxa weeye qodobka 7 article 17 qodobka 23 la wareegid jago degan guud awgeed waxa wuxuu sheegay qodobkaasi duqa magaalada markuu la tashado guddiga fulinta kana helo ogolaasho guddiga qarankeena shaqadaha guud wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro go'aan la wareegid jago dhisan ama dhul bannaan qodobkaasi wuxuu si toos u sheegayaa in hawshaasi ay mas'uul ka tahay guddiga qaranka ee shaqadaha guud oo uu gudoomiye u yahay wasiirka howlaha guud waxaynu ognahay markaa qodobada waxaa ka ratibaya qofka marka jagadiisii ama dhulkiisii la wareego wuxuu isla qodobka 23aad ee article 17 sheegaya faqradiisa labaad waxay sheegaysaa qofka lagu fuliyo go'aanka kor ku xusan ee xubinta koowaad wuxuu xaq u leeyahay waxyaabaha soo socda kow qofka lahaa jagadu waxa uu xaq u yeelanayaa magdhow u dhigma wixii jagadaasi uga dhisnaa b in la siiyo jago u dhiganta goob ahaan iyo cabir ahaan jagadii lagala wareegay arrintaasi kowt bay ahayd su-aasha markaan weydiinaya waxa weeye xildhibaanadayda inta xaggan joogta iyo inta maqanba maadaama baarlamaanku si guud u sharciga iyo xeerarka ku ilaaliya xukuumadda xilligaa jirta idinkuna aad tihiin matalayaashii gobolka Awdal arrintaasi oo ay ognahay dhaqaale burburka ay degmadan iyo gobolkan u geysatay maxaa xukuumadda wax uga qaban weydeen maxaa ula hadli weydeen maxaa arrintaas xeerka ugu ilaalin weydeen waayo arrintan arrin degmo maaha waa arrin ay wasaaradda howlaha guud mas'uul ka tahay aad u mahadsan salaam mid waxa weeyaan kow tii awoodee uu ka hadlay professor Ruush horta professor Ruush waa inuu uga mahadnaqno inuu indhaheeda ku soo jeediyo wax fara badan umana lihi reer Awdal dartood imika waxaan u leeyahay anigoo kaga wakiila bulshada reer Soomaaliland ayaa sidaa leh waa shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee aad uga hadla saameynta xeerarkan cashuuruhu ku leeyihiin dakhliyada deegaanada ay ku leeyihiin si aqoon ahna uga hadla midna weedaan ka taxadirno tani dooni mayno in cid gaar ah lagu ceebeeyo oo xaraan quutayaa laga dhigo dooni mayno Soomaaliland qurxinteeda waxa ka mid ah hagaajinta waxa ka qalloocan wax bana meel bay qalloocaasi kaga jirayaan marka haddii maanta ay wax ka tirsanayso degmo kale la moodayo inay wax dheeraad ah qaadanayso Boorama waxa iyadna dheeraad kale oo ku jiri kara ayaa dawladda la heli kara midna ma rabna in la eebeeyo Soomaaliland waxaan u baahanahay sida halka uga sii wada dhaqaaqi lahayd horta ummaduhu markaa ummad dagaal ka soo baxday baynu ahayn waxyaabaha laga degdegay anigu waxaan u arkaa waxa ka mid ah afis fiican baa la isku wada sameeyay waxaynu kala galeen iscafino waa arrin aad u qurux badan oo gobonnimada iyo wanaagga ummadan sheegaysa laakiin loogama faa'iideysan duruuftii xilligaa jirtay in lagu dhiso wax yuhuunta dadka aad iskugu soo jiido oo dhaafsiisan afiskaa la isku fidiyay loogama faa'iideysan dabadeetana dowladnimadiiba waxaanu la gallay dee innagiioo sidii reerahii wada dagaalamayay u kala shakisan ayaanu la gallay samayntii dastuurku markaa waxay bilowday weji kale oo cusub intii ahdi qarameedka dee dhulkoo baaba'buna wuu iska ahaa laakiin markii dastuurku meesha ka saaray reernimadii ayaa wax tirsashada reeruhuna dee aad u soo mudhbaxday waana markaad u fiirsato wixii ka dambeeyey markii dastuurka loo codeeyey waa inta ay ugu badan tahay eed maqlayso
reer awdaloo oodahoodii watabaa ka soo dareeray labadii gole ee xeer dejinta intaad maqlaysa u badan waa wixii dee dastuurka ka dambeeyey okay maanta waxaynu u baahannahay waa talo ina dhaafisa halkan aynu maanta joogno innaga oo qurina uma baahno hagaajinta arrintani ma aha arrin awdaloo qura wax taraysa anigu sidaan ka aaminsanahay somaliland oo dhan bay dee wax taraysaa waxana wax kula ma aha reer boorame reer somaliland baa wax ku la-aanaya oo ay dee ka wada dhaxaysaa duuduubka miisaaniyadda anu horta weli hal miisaaniyadoo gacad u taagan labadaa goor midna ma jirto midna ilaahay baan qadarinoo arrin caafimaad baa iga soo dhex gashay tan dambana anigu qolyihii diiday baan dee ka mid ahaa deegaankan ay dhaqaaluhu ku batay maaha mushkiladda dhabta ah xukuumadda joogtaan raalli kama noqoto in la faqfaqo oo laga doodo oo waxa laga hadlayo halkaa la soo dhigo inantii imika waxay nagala hadlaysay 3 bilyan bay nagala hadlaysay oo wasaaradaha iyo loo kala wareejiyey golaha xeer dejintuna de qayb buu ka ahaa ayay nagala hadlayso dee tafaasiisheedii xataa aada u gashay meelna kumay soo qaadin 78 bilyan oo xukuumaddu qortay oo meelna ku tirsanayn inay raggani ka soo saareen meelna kumay soo hadal qaadin eeg hadda meelna laguma soo hadal qaadin wasaaradaha ka dacwoonayey iyo hay-adaha ka dacwoonayey laynkan waxumaan rabina laynkan kaleanu rabay ee u yimiday golaha meelna laguma soo hadal qaadin isbeddelka la sameeyey yaa xabiibtii ma aha 3 bilyan waa more than 100 bilyan weyn anoo ka soo horjeedaan qiray waxqabadka raggaasi qabteen waan ka soo horjeeda anigu aan ka doodna baan lahaa laakiin waan qiray maxaan u qiray waxa la bedelay waa wax aada u ballaadhan waxa kaloo xog idinka maqan goluhu waa golaha dastuuriyan ka mas-uula baan idinku yidhi markii hore soo maaha miisaaniyadda ta labaad intii goluhu qortay bay xukuumaddu ka saartay markay wasaaradda maaliyaddu oo isixi karaa abubakarne wasaaradda maaliyaddu markii loo gudbinaya halkaa inay ka soo gudubta la rabay iyadaa ka saartay goluhu halkan waagii qolada ingiriiska waxay tidhaahdaa they were showing who is the boss waa marka quru muujay inuu bahasha mas-uul ka yahay uu ku darsaday iyagoo markaa arkay horta intaasaa dhacday waa qodob waa run cabdilqaadir arinka uu ka hadlayay dee waanu khalanna waa run waana dabiicadda haddii alla idhaa golahani inaanu had iyo jeer wax walba ka midaysnaanaana dantiinu kuma jirto kala duwanaanshaha dhexdooda dan baa ku jirta laakiin inaan wax walba ku kala teganaano iyadna dani kuma jirto waana markaa qodobka hadda anigii hore u gareedhi weli mar haddaydaanna arag annagoo 13 gobolka awdal ah oo halkaa idin soo wada hor fadhina oo qodob idinkala hadlayna dee anigu waxay la tahay wax looga galgashaa halkaasi ma jirto way nagu foorartaa xabaddaas qodobka halkaasaan iska dhigayaa arrin aada u foolxun buu ahaa master balaanka boorama runtii horumarku wuxuu keenaa dee dhibtiisu wataa laakiin sida loo galay arrinka boorama si aada u foolxun bay ahayd in badanna waanu isku daynay inaanu dee ka galgalanno oo aanu wax dhaqdhaqaajinno laba arrimoodba waxaa caqabad bay ahayd waa marnaba maanaan helin cid ka wakiila dadka dhibtu gaadhay anoo kale waxaa ila soo hadlay inkastoonan jeclayn inaan iska sooco xildhibaanada kale intaan ogahay umaan dee ka sheegi karaa anoo kale waxaa ila soo hadlayay dad dhibtu gaadhay laakiin marnaba aan u habaysnayn koox ahaan qof ah isku tegiina nasiib darro ma suurtogelin dabadeetana dee xildhibaanku waxa weeye sideed ku ogaanaysaa arrinka dhibta intay leeg tahay master balaan marka la samaynayo waa wax qurux badan in aad taageerto ayaa mabda'a guud uu asalkiisu yahay
dadkiina hadday hantidoodii dhulka geliyeen hantidii dadkana in la ilaaliyaana dee waa daruuri marka aad hesho dad isku duuban oo guddi leh oo tale lala gaari karo oo hay-adihii kalena la horkici karo arrinta sigaarka ee xildhibaan maydhana ka sheekeeyey waxyaabaha ay ku hirgashay bay ka mid ahayd inay lahaayeen dad isku duuban marka su-aalahana hal afeefaan ka dhigtee asxaabta kale intaanay soo gelin dee su-aalaha idaacadda iska daayo su-aalo caadiya oo reer boorama leeyihiin la weydiiya eeg hadda su-aalaha qaar waxaan dareemayey inaan hore u daawaday iyadoo xildhibaan la weydiinay waad mahadsan waxaad dareemaysaan inaanu kala qaybsannahay laakiin run baa idiin sheegayaaye anu markaan halkan imiday xildhibaan qaran anigoo ah xildhibaan reer awdal ah ayaan imiday ujeeddaanna midaysa dhammaantayo ujeeddadaasina waa taan idinku matalayno weeyaan waa ta qarankaanu ku matalayno laakiin waxaa laga yaabaa inaanu fikir ku kala duwanaano bini-aadmiguna fikirka way ku kala duwan yihin raggan saaxiibaanoo aad baan isugu dhownahay kaa waan haynaa xalku waxa weeyi taanu halkan u soo joogsannay waxaan ku noqonayaa horta guulaanu keennay dhammaantayo markaanu halkaa golaha tagnay shirguddoon baa la dooranayey inayna ka maqnaan xildhibaanada awdal oo shirguddoonkaanu ka muuqanno ayaanu go-aan ku gaadhay fikirkaana waxaa kow ka ahaa oo noo yeedhay oo isku kaayo daba riday oo ka dhabeeyey oo arrintaasi maaragtay ka midho dhaliyey xildhibaan maxamed xuseen maydhane sacab buu leeyahay waa ninka ugu waxqabad badan weeye waxaa kaluu sameeyey urur magaca halkan tirsanaya laakiin somalilan ah ayuu ka noqday ku-xigeenka labaad waanu warwarsanaa markuu berbere marayey rag odayaala ay la soo hadlay waxay igu yidhaahdeen axmed yaasiinow hillaac xildhibaanadii jufada u ahaa lama socdaana maxaa ku dhacay caawa way joogaan iyo kaa ka jawaabi waxaan idhi anu kama jawaabi karo laakiin waxaa la socdaa xildhibaan maxamed xuseen maydhane oo abaal idinku leh ninkaasi waa inaad ururkan la dhistaan ood la soo saartaan markaa uu ka soo noqday ee hawshii ka soo dhammaataan weydiiyey qoladaasoo ila hadashay ma idin garab galeen baan ku idhi haa buu yidhi oo weliba intayna garab galeen bay fadhiista yidhaahdeen ururka hillaac wuxuu ku soo baxay fadliga maxamed xuseen maydhane taana sharaf weyn buu ku leeyahay haddaad kala garan weydaan xildhibaanada ka idin matelaya ee sida dhabtaa idiin matelaya ood asqowdaan horta waa mushkilad weeye su-aashii baan ku noqonayaa xildhibaanka 13 waanu tiro yarnahay laakiin dadku waa block gobol gobol reer weeyaan inaanu shirguddoonka xubin ku yeelanno waxaanu la heshiinay blockyo kale xal waan haynaayo waxay naga maqan xalkeeda waan helaynaa waa taa maydhane ku keenay ururkii hillaac inuu urur soo baxo maaragtay hillaac inuu urur noqdo waa taa ku keenay saaxiib buu leeyahay saaxiib baanu leenahay annakoo isku duuban dantana haddaanu ka midowno waxbaan idiin qaban karaynaayo ujeeddadu waxa weeyaan inay gobolku horumaro inay somalilan horumarto oo nabad heleelo qodobka labaad dhaqaalaha aad looga hadlay inantaasi waxayna weydiisay waad biirsateen waa runteed waanu biirsannay xaq baanu leenahay daawixiiyo waxa weeyaan annaan shaqaba idiin qaban karayn oo dhaqaalihii dushayada wasaarada iyo hay-adaha dowladdu qaybsadeen waxa weeyaan ninkii aad doorateen inuu lugeeyo uu baki gaari waayo uu dilo gaari kari waayo halkii laga soo doortay uu lughayo gaari kari waayo saylac tegi kari waayo waxa sababaya dhaqaale la'aanta waxa weeye waxaanu samaynay waanu kororsanay waxaanu ku kororsanay caawa nin baan anigu siin doonaa shahaado sharaf waxaan siinayaa oon ku dhawaaqaya waxaan daawaday fiideo nin macallin oo jaamacadda camuud ka baxday oo deegaankiisii ku noqday hay-adahan ka shaqaynayey boorama tuulaanan garanayn ma jirto oonan la soo shaqayn odayaadeeda iyo guddida maamusha tuuladaa magaceygii ma garanayo laakiin waxaan malaynayaa inay waqooyiga ahayd ninkaasi 2 fasal buu ku hayaa maaragtay 5 fasal waxa u dhisan 2 qol baa u dhisan laakiin ilaa grade 5 buu hayaa wuu isku dhex dhigaa 1 2 3 wuu dhigaa
4 iyo 5 na meel gaar isagii macallin kale ninkaasi deegaankiisii uu ku noqday wuxuu sheegay inay wasaaraddu siiso $140 oo mushaara oo ku jiro payrollka laakiin 140kaasi xaaskiisii iyo boorama jooga hay kiradiisa tahay horta macallinkaasi waxaan ballan qaadaynaa danta guud waxaana midaynaya xildhibaanadii way maqlayaan saaxiibadaye mushaar fiican ayaanu u qoraynaa 13 kayaga oo iska soo jaraynaa oo halkiisaasi isagoo jooga haw maaragtay dadka ku noqday deegaankiisa wax baray shahaada sharafna uu ninkaasi wuu mudan yahay dadkooda feelinka maaragtay ee wax soo saaraya waa tayni doonayna weey arrinta jagooyinka anu aad baan uga damqaday waxaan qiimeeyay dhaqaalaha nagaga lumay $105 milyan oo dollar ayay jagooyinku saameyn ku yeelatay sanadkii ka dambeeyay oo dhanna maaragtay dhaqaaluhu istaagay ilaa ay ku joog saameyntiisii maaragtay hay nagu socotaa sidaa maydhana sheegay geed dheer iyo geed gaabanba waan u fuulay waxa weeyaan dee dagaalku noocay badan yahay dhowr iyo 90kii lacagta Somaliland gobolka awdal baa ugu waraqbalay lacagtii shilin baa 100 shilin laynoogu bedelay dawladnimada waan jecelnahay isla markaaynu shilinkii qaadanayba shilinkii shilin buu noqdo 100kaagiina waa laga qaaday sixir bar baa dhacay dhaqaale halkaas uu kaaga burburay marka mar walba dhaqaale waa la isku fikiraya tani waxay ahayd duulaan caadi ahay run baan sheegaynaa ka gaban bayno run baan sheegaynaa dadka waa lagu soo duulay dhaqaalahooga lagu soo diiday jagooyinkuna dhaqaaleedu ku jira waa la ogaaday cidna kuma xumaynayno war waxaanu idinla nimidnay maxaa dowlad timaadeen wuu cabdiqaadir yidhi walaalkaye waxaanu idinkula nimidnay niyad saafiya qalbi saafiya SDF-ta mashaariicda iyo dhaqaalaha waddanka intaa miisaaniyadda ka sheekayna maahayna hay-adaha fuliya gobolka awdal lama keeno hay-ad iyada oo sheegtay USAID ku sheegeen mashruuc biyoolay wadeen 14 bilyan buu ahaa 14 milyan oo dollar degmooyinka eedaa loo qaybinayay kaawa lagu keeni oo waa khasaboo dee USAID baa tidhi boorama 2 milyan ha la siiyo waddada igad baa imika halkan dhigtay waa run ha dhigta ee iyadaa tidhi halloobaki ha loo dhiso wixii hay-adi keento ay sidaa magacooda lagu keenaya laakiin hay-adihii iyo wasiiradii waddanka qabyaalin xun baa jirta ilaahay baashay horta inaga dulqaado dowladnimaduna inooma hagaagayso ilaa qabyaaladaasi haynu ka bogsano waxaan aaminsanahay horta walaalkay kama hadhin markay golaha hor timiday waraaq baan qornay annagoo isku dhan guddida dhaqaalaha waanu qatannahay dhaqaalaha waxaana laga siiyaanu idho gobolkaygaa laga siiyo waraaqda tiyo taalla ayaa haddana kama joogsane oo guddidii dhaqaalaha codsigayga hor yaallo abiib wakaas ay beeliyee abaabkaan ku garaacay guddidii dhaqaalaha rag badan baan horta la sii hadlay saaxiibbo waaweyn oo adag baan ku dhex leeyahay war waanu qatannahay wax noo qora raggii waa yahay bay yidhaahdeen abaabkaan ku garaacay waxaan ku idhi waar waad ogtihiin sidaanu qatannahay wax noo qora waxay igu yidhaahdeen sawkan xildhibaan abiib jooga abiib waa ina fiican baan idho waan jecelahay oo waan arkayaa in joogee laakiin waan xoojinayaa baan idhi walaalkay inaan su-aalihii walaalkay mukhtaar uu ka jawaabay inaan xoojiyo oo ahaa su-aalihii uu ka jawaabay soo weydiiyey walaalkeen ruush iyo gabadhii ay soo weydiisay koo wuxuu walaalkeen ruush weydiiyey dhammaantiin baa uu yidhi lacagta aad ku soo darteen ama miisaaniyadda ka muuqata waxay 400,000 oo dollar marka intaasi maxay ka tahay miisaaniyaddii guud kow waxaan leeyahay horta inaynu yar fahnaa wanaagsan miisaaniyaddu waxaa horta ay ka timaadaa sidaan horeba u soo sheegay iyadoo wasaaradaysan bay ka imanaysaa dabadeedna wasaarad kasta ay iyadoo focuska saaraysa ama prioritization samaynaysa ayay waxay baahiyaadkii ka soo ururinaysaa gobolladii dabadeedna waxaan halkaa macnaha idin xasuusinayaa inaanay ahayn 400 ee $1,000 wixii keliya ee ku jirtay miisaaniyaddii 2022 way ku jireen iyo ballaarin baa ku jiray librarygii baa ku jiray la dhisay waxaa ku jiray iskuullo kale laakiin intana 400 ee aan sheegaynaa waxay tahay
intii aan ku darnay markii ay golaha timid. That's one point. Talabaad walaashan na weydiisana waxay ahayd lacagtan la kordhiyey anigoo arrintaasi yar doonayana yar faahfaahiyo waxaa ogtihiin golaha wakiiladu sidii walaalkeen cabdinaasir uu ka sheekeeyey wuxuu qabtaa shaqooyinkaasi oo ay ka mid yihiin matalaadda dadka iyo sidii uu soo sheegay in golahu uu leeyahay kalfadhiyo iyo kalfadhiyadaasi inta ka maqan in markaa golahu oo maxay ahayd aan ku noqdo deegaanadii leeyahay lacagtaasi la kordhiyey ma wada aha wax xildhibaanada loo kordhiyey abada fiirsada waa wax loo kordhiyey guddiyadu inay ku shaqeeyaan si ay deegaanadii dib ugu noqdaan oo ay u dhacdo matalaad dhabi waa waxyaalihii marka dhawadan ka cudur daaranaynay waxyaalihii markii aan cararaynay ee doorashada aan u cararaynay waxaa ka mid ahayd in lanagu lahaa waxaad noo timaadaan oo keliyaata markaa cod la doonayo weliba dadka maxaa yeelay baadiyaha joogay arrintaas waa xaqiiqo haddii aanay jirin laakiin wax noo fudaydinaya in lagu noqdo dadkii arrintaas waa adkaanaysaa laakiin hadda wixii ka dambeeya maadaama guddiyadii loo kordhiyey waxay ku shaqeeyaan insha allahu tacaala waxa dhici doonta matalaad dhaba taasi oo ku baysgaraysan in ay isgaadhaan golihii mudanihii iyo deegaankii laga soo doortay xildhibaanadeeda aanoo hadalka badinaynin waxaan ku hadlayaa afka dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka awdal xildhibaan waxaa jirta miisaaniyad aad u ansixiseen dallada guud ee naafada ee gobolka awdal maxay ku leedahay maxaase ka soo gaadhay taa lama hayee halkii loo doonayaa wad maasanta dadka halkaa soo fadhiisanaya filashay qabeen xildhibaano filashaday qabeen iyo waxay hadda inaga muuqdaana dadkan marka hore way iska niyad jabsanaayeen caawan waxaad ugu darteen tii tu ka daran waxaad noo sheegtaan dadkan waxay nagu tuhmayeen inaad aqoon-yahan dhallinyar iyo dad waaqica la socda aad tihiin middii filashadeedii maanta inagama hayaan caawa waxaad noo sheegtaan hal ama laba erey dadka rajadooda aad ku soo celinaysaan waa mahadsantihiin mar walba burciyo boorama xeerka 10%ka way ku dulmayeen haddaba labada gobol iyo ku aqlabiyadii ugu badneed wakiilada maxaa sababay in ay qaban waayaan xeerka ay gobolana ku qadan yihiin gobolada kalena ay ku najaxeen ku biimaaleen mise wax inaga saameyn batay xildhibaanada aad aqlabiyada aad ka badnaydeen mise wax miniga qorshaysay 12 xildhibaan laguma qabto golo wakiile 45 buu ku soo xirmaa golaha wakiiladu marka maxaa niga sababa inaad saameyn ugu sugu yeelan weydeen labada gobol inay saami wada sameystaan ilaa labada gobol burciyo boorma ku dulmayeen xeerka 10%ka ay burciyo boorma qaataan aad baad mahadsantihiin waxaan iskiin baray magacaygu waa Sacaado Naasir Xuseen su-aashaygu waysa ahayd iyadoo ay baahiyaasheedu badan yihiin anoo ku hadlay afka dhalinyarada gobolka awdal ayaan maanta midh ka dhiibanayaa midhaasoo ah inagoo gobolkii aqoonta ah anoon kala reebaynin xildhibaan dhammaantiin aan weydiinaya su-aashaas weli ma jira xildhibaan isweydiiyey maxaa laa bareeri lagu furi waayey gobolka awdal ruushina weydiiyey ee ahayd hab yaad ku guulaysan kartaan ma jiro inagoo 12 xildhibaan oo wax ku qaban kartaan wuu jiraa habkaasi wuxuu u jiraa number 1 anagu waxaan nahay hadda xildhibaano cusub aan nahay waxaan isku dayeynaa oon rabnaa inaanu miisaaniyadda waddanka aan ka dhigno miisaaniyad gobolaysan oo gobol kastaba baahidiisa uu ka jawaabto miisaaniyaddu ayaan rabnaa annagoo la kaashanana xildhibaanada kale ee golaha lagula jira kaas waa qodobka labaad ee kalena waxa weeyaan xildhibaanadu waxay leeyihiin lobbying bay leeyihiin xildhibaan buu la saaxiib yahay waxaan isku dayeynaa inaan xildhibaanada kale ee gobollada kale ka soo jeeda ee aan isku danta nahay aan la shaqayno iyagana danahooga aan fulino kaayagana ay fuliyaan taasaan kaga jawaabi lahaa runtii waxa weeyaan anigoo ka xun xildhibaanada qaar maanta inay halkan si uga hadleen kooxa anu kooxda maan jeclayn
laakiin way ka muuqataa sida aad tiri arrintaas waxa weeyaan kulley erey baan ka odhan doonaa arrinta kale ee ah maxaad ka midaysan tihiin waxyaaba badan baan ka midaysannahay waxaa ka mid a dareenkaan ka midaysannahay waxa weeyaan gobolka adag waxaan dareensannahay inay baahiyo fara badan ay taallo aan weli wax badan laga qaban aanan u guutano sidii wax looga qaban lahaa marka wax laga qabanaya qabashadu ma aha inaad dadka kala cambaarayso oo aad waxyaabo kaloo aanay ahayn aad ku sheegto waxa lagaaga baahan yahay inaad la timaado xirfaddii wax lagu qaban lahaa iyo dhaqdhaqaaqii si aad u abuur lahayd wax lagu qaban lahayd taana insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu dib iskugu noqon doono aanu arrintaa la iman doono haddii ilaaha yidhaahdo arrinta ka dhacday golaha intii aan fasaxa ku jirnay laisku shaandheeyey guddoomiyaha golaha wakiilada horta waa mas-uulkii golaha isaga ayaa xaq u leh inuu isku shaandheeyo laakiin waxaa jirta la xisaabtan baa jira aanu dib u eegi doono sida uu shaqaalaha golaha uu iskugu shaandheeyey ma cadaalad maaha annagaa dib ugu noqon doona arrintaasina waxay noqon doontaa arrin aan guddoomiyaha kala xisaabtanno haddii ilaha yidhaahdo ma aan noqonayso mid aan ku dayno haddii ilaha yidhaahdo arrinta kale labaadan doonaya ku noqdo waa master blanka magaalada boorama hawl badan baa laga qabtay anigu waxaan aaminsanahay inkastoon horta hal araana ku dhufanayo anagu haddaan xildhibaanada nahay horta arrintaa kulan kamaanu yeelan iskamaanu arag iskamaanu xog waraysan anugu waxaan rumaysanahay master blanka boorama inuu yahay master balan fiican oo magaalada mustaqbalka ay u aayi doonto haddiise qofku uu ka fikiro in hal jago oo ay ka martay waan ka xunnahay runtii dad dhibaata ka soo gaadhay way jiraan laakiin waxaa ka weyn qofka shakhsigaa mustaqbalka iyo bulshada ka weyn waxaan aaminsanahay in master blanka uu yahay shaqo loo baahnaa magaaladun ay u baahnayd waxaanan ku hambalyaynayaa cid kastoo arrintaa ka qayb qaadatay oo uu ka mid yahay mayorka magaalada uu ka mid yahay isuduwaha howlaha guud ee gobolka uu ka mid yahay wasaaradda howlaha guud aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaanan ka codsanaynaa inay si degdega u dhammaystiraan si ay dadku ay shaqadooda caadiga ugu soo celiyaan halkay arrinta magaciisa waan ka xumahay ugu idhaafay dalada guud ee naafada ee somalilan haa lacag baa loo gooyey laakiin waa waddanka oo dhan weeyaan gobolka awdal intuu ku leeyahay iyo intaad yeelan doontaana insha allah waxaan rabnaa inaan kaala shaqayno oo noogu timaado si gaara aan u raadinno qaybta aad ku leedihiin waanad mahadsan tahay inaad arrintaa nagu baraarugiso qof kastana saasaa looga baahan yahay ninkii kale walaalkeenana canaantay ee yidhi waxaan idinka filaynay rag waaweyn oo wax qabtay wallahi waxaa laga yaabaa in doodayda caawa meesha iyo saan u kala qaybsannay ay waxoogaa ta'siiro ku samaysay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan gobolka awdal aan u soo hoyn doono guulo iyo waxqabad weyn wakhtigaygu sanaduma naga dhacay 4 sano kalaan haysanaa insha allah iyo haddii ay beeri ma timaado marka wax badan ma qaban doona insha allah haddii ilaahay yidhaahdo naga siyaarka insha allah ayaan rajaynaynaa in aad arrintaan nagula xisaabtanto oo aanad nagu degdegin arrinta laabareeriga ah oo ina weydiisay gabadha adeerka u ahayd sacaado naasir waa run weeyaan laabareeriga buuram wuxuu ahaa inuu noqdo laabareeriga ugu weyn somalilan oo aynu gobolkii aqoonta maadaama aan nahay uu inoo noqdo laabareeri aan ku faano oo gobolka u qalma nasiib darro hawshaasi ma dhicin laakiin annagu xildhibaan ahaan de mid aan mas-uul ka ahayn maahayn waa muddo dheer gobolku ayay arrintaasi ka maqnayd waxaan isku dayi doonaa inaan hawshaa ka shaqayno insha allah oo laabareeri ay dadka dhalinyarta reer boorama u aayaan la keeno waanan ku dadaali doonaa insha allah